xafladan oo ah xaflad aad u qiimo badan oo aynu ugu tabarucayno ama ugu qayla dhaaminayno ama ugu sameynayno iclaan caam ah dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inay ka qayb galaan abaaraha ka dhacay galbeedka Soomaaliland sifa khaasa iyo meelaha kale abaaraha xoog leh ka jiraan dhamaantood si gaarana arinta aynu ugu qayla dhaaminayno ama ugu baaqayno aad iyo aad baan iclaankaas runtii ugu mahadinaya walaalaha soo qaban qaabiyay iyo inaynu isugu nimid dad badan oo intan la eeg oo kala duwan oo dhamaantood dareemaya ama danaynaya baahida iyo mushkiladda ku habsatay dadka muslimiinta ah ee inaga mid ah si gaarana inoo taabanaysa waxaana runtii xusud mudan qofka muuminka ah ama muslimka ah shariicada muxamadiyada ayaa inaga dhergisay sida aynu isku nahay hadii aynu taa dabaqi lahayn waxba inaga ma xumaadeen ilaahay jalla wa ala quraanka wuxuu ku leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa kulankan qiimaha leh oo aynu doonaynaa inaynu waxtar wax ku oola aynu halkan uga diyaarino uga horo walaalaheen intaynu inagu tari karo iyo inta aynu ku guubaabinayno walaalaheena reer UK iyo caalamka dhamaantiiba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaaladda adag ee degdeg ah ee ku timid gobolada xeebaha ee dalkeena waxaan leeyahay marka hore dawladda Somaliland baaqi ay ka soo saartay hawsha ku habsatay ama abaaraha ku habsaday ummadeena xeebaha ku nool waa wuxuu ahaa baaq ay u dirtay cid walba oo caalamka kamid ah gaal iyo muslim si ay uga soo qayb qaataan arinta abaaraha oo ay dadka tabaalaysan wuxuu taraan sameeyay dalka UK runtii guddidaasi waa guddi ku abuurantay ama isugu timi dhibaatada jirta ee ka dhacday dalkii dawladuna ay iclaamisay madaxweyne ku-xigeenkuna u howlgalay ee uu isaguna qayladhaanta dheer ka keenay kadib waxa arrinkaa ka dhashay in halka kan guddi lagu abuuro guddidaasoo sida ay runtu tahay qurbahoo dhan damacsan inay gaadhsiiso qayladhaantii ama xilkii saaraa qurbo joogta si ay uga qayb qaataan dhibaatada ka jirta dalkii sida ay sheekhi ambassador-kuba sheegeen dhibaatadaasi waa dhibaato aad u culus maalinbana dee meel bay joogtaa dhibta abaaruhuna ma laha gobol iyo dal iyo xuduud ummadaha caalamka dhammaantood madow iyo caddaan gaal iyo muslim way u siman yihiin inay u soo gurmadaan dhibtaas iyada ah waxaase xil gaarihi sii saaran yahay dadka wixii af Soomaaliga ku hadla waxa xil gaarihi ka sii saaran yahay dadka wixii Somaliland ayaa dhibkaasi ka sii saaran yahay waxaan leeyahay dadka af Soomaaliga ku hadla ka naxaya walaalahooda dhibaataysan ee xeebaha Somaliland laga soo iclaamiyay abaaraha ka jira waxaan jecelahay inay u gurmadaan dhibka isaga ah waxa weeye fadhigan maanta aanu fadhinaa wuxuu yahay waxaan nahay guddi qayladhaansiya oo aan doonayno in dadweynaha islaamka ah iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka u dhashay Somaliland inaanu soo gaarsiino baaq ah inay wadankan Somaliland oo waliba qaybta gobolka loo yaqaan xeebaha inay abaara ka habsadeen abaaraha soo walo maanta TV-ga daawada oo ka warhayo ayaan doonaynaa inaanu degdeg inaanu gaarsiino marka waxaan dadweynaha na daawanaya ama na maqlaya u sheegaynaa inay si wanaagsan iyaguna gargaarka ay noqon qayb galaan oo aan anagu doonayno inaanu si dhaqso ah aanu walaayahay wax u gaarsiino sida loo sheegayna arintan waa arin ummadda Ilaahay oo dhan u wada dhaxaysa oo ummad khaasatan reer Somaliland khusaysa
inaynu u qayladhaanta u samaynana waajib weeye waxa aynu maanta halkan ragaygaas oo dhan aanu iskugu nimid murtideedu waxa weeye waa qayladhaan aanu u jeedinayno dhammaan inta muxsiniinta ah ee wanaagga jecel ee dareemaysa dhibaatada baaxadda leh ee ku habsatay dadka walaalaheena ee maanta inoo baahan ee ilaahay baa wax tari kara laakiin maanta inaga wax ina mooday ee isla wartalow ilaahay dad ma idiin maqan yihiin waxaan leeyahay marka waxaan inteedaas iskugu nimid war waa qayladhaan war waxaan leenahay waxaan yeeboohinaynaa in aad wax ka tartaan oo aad maalkiina iyo jeebkiina ku jira maanta aad jiirkiina ka goysaan oo aad u damqataan dadka maranaya ee walaalaheeda nin dhimanaya iyo qof ilmo maalin kastaba la aasayo wax ka daran oo la sameyn lahaa ma jiro wax kastaba kuwaasaa ka horeeya waa sidii sheekhu sheegay waxa aad bixsato unbaa adigoo leh oo ku raacaya waxaan kale oo dhan ay ku raaci maayaan